السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي دقالق أهدوني ذا في هذا ميلو بعد كجوكتان مقعي محمد سعيد مستر ناين يوتيوب كاقدا ونسنو وسعيد مستر ناين أجل إني سلام يا لما أصحابك وحنا جنال كيجا مدبل أهتمان أركين حالة كجرت يوتيوب كيجا يو بروبلم إيجا هستا سيدا درتيد ما تحت مقال سومان دوبين لكن سوحيابا أنا كأمس يوايا أركي أو بلشدو آدي اسكول حسوعته وحارة مركا إن أن كادب جيو وكو ogahay inaad ogaato harata xaqiiqda dhabta ah maxaa jira waxaan dhacay maxaa ka run ah maxaa ka been ah sidee wax u jiraan ilaa hadda confuse qaaday waa ku jiida waa fikraysa waxaad leedahay maxaa qaldan sideese wax u saxan yihiin sideese wax u qaldan yihiin maxaa ka run ah sheekadan okay aamin aniga bes qof kale ha aamin okay waxaan rabaa marka inaan laba qodob ku sheego kaliya intaan labada qodob u gudbin waxaan rabaa horta inaan ku sheego waxaan in ay tahay YouTube-na boqolkiiba 99 ama social media idil boqolkiiba 99 dhibic waa been ha aaminin hadda ku sheegaya ha aaminin waxaan rabaa marka laba qodob inaan ku sheego qodobka koowaad hadda ka horna waa ku sheegay haddana waa kugu celinaya dad badan oo waxaan arkaa ku haaya Najwa Calaale Dirisla Cabdi ayaa xiriir kala dhaxeeyay way ka soo tagtay Dirisla Cabdi siikay u tagtay Najwa Calaale iyo Dirisle maxaa aamin aniga Dirisle iyo Najwa Calaale waa laba shakhsi oo walaalo ah sideen wax kugu sheegaa waa laba shakhsi oo walaalo ah xiriir ma dhaxmarin wax xiriira kama dhaxeyn warkayga ma fahantay كلية بس نجوا على الدرس لو حقوق تمد ولا التنمو يوانا كده حي إن أي جرب سته وانا جوا على التنمو ده كلية أسميه خلاص دجال أنا الأحمر حرير أنا الأحمر وحبوق أنا كده حين اسمه دجال كان اسمه دجال سنة لا بقف ولا لا واي وحد كيف كريس وحد ما له الأردن جوجي يسلس تندرس لي يو نجوها كاس أنك كتبه وحاربا سيكي يو نجوا على وحا كده حي in aan ku sheego waadna wax ka ogaatay horaan kugu sheegay meeshan waa social media ha aaminin boqolkiiba 99 dhibic waa been qofkii aqal u saaxiib ah mise qofkii qof aqli leh oo wax fahmi karo garaad leh mise fahmi kara body language-ka ay ku dhaqmaysay Najwa Calaale mise siikay ugu dhaqmay waa fahmi kartaa qof aqli laha tahay sheekadan aniga boqolkiiba 99 dhibic waa qiyaasay wali Najwa ismaana maqalin laakiin si waxaan ku qiyaasay in ay tahay prank ama been waa wax adiga lagu rabo in lagu baashaaliyo baradarkayga wax la rabo adiga in lagu qurxiyo oo waqtiga qaaliga ah lagu baashaaliyo marka baashaalka qaado laakiin si baashaalka ha dhabaysanin baashaalka ku raaxayso laakiin si baashaalka si dhab ah ha ugu raaxaysanin way fahanteen waxaan filayaa boqolkiiba boqol hadalkayga inaad fahansataa hadalkaygana meel ku qoro sheekadan ay wadaan waa prank hadan ku leeyahay ugu soo xasuuso mise 5 bil kadib mise 2 bil kadib mise bil kadib mise maalin kadib mise daqiiqada kadib waxay ahaanba waa prank way dhihi doonaan maalin ugu soo xasuuso aniga sababtay tahay hadii xiriirkan uu dhab yahay la lama soo degdegeen oo toos bam nagu soo siiyeen xiriirka waa la nuugi lahaa waa la abuuri lahaa waa la qurxin lahaa waxay yar qurux badan la isku soo firdhin lahaa waqti qurux badan socon lahaa laakiin xiriir inta la soo duubay afka naga soo galiyay taas waxaan u arkaa in ay tahay dadkayga aan baashaalino marka baashaalka aan wada qaadano laakiin si harumaysanina waxaan rabaa halka inaan ka salaamo dhammaan asxaabta YouTube-ka ku xiran YouTube-ka ciladii iga haysata insha Allah taala waxaan rajaynayaa bishan dabiiqeed inay wax walba dhamaanayaan boqolkiiba 99 waa soo dhameeyay waxaan idin leeyahay anigoo caafimaad qaba dib idinku soo laabtay waana wada raaxaysan doonaa si qurux badan oo baashaali doonaa asxaabta isoo xiriirisa mar walbana aad ugu mahadsantihiin oo xaaladeeda qaaska ah la socota wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ha ilaabin sheekadu waa been baashaalkana qaado